waad ogtihiin nimanka SNM gobolku markii ay joogeen 24 saac qof baa lagu dili jiray nimankii caashe barida soo qabtay qofkii qof dilay soo qaban waayay maanta deegaanka ma joogaan waxa joogay ka shaqeeya waa ciidankiina SSC ee naftiina idin huriyay naft maalkoodaba waxa la rabaa inay hoggaansanaataan ciidanka habeenkii shaqeynaya waxyaalaha amni darrada ah oo aad la soo wadaagtaan ciidanka shacabka reer SSC runaantii waad aragtaan guulaha inoo muuqda waxaan shacabka reer SSC dhammaan jamaahiirta logeysiinayaa in amnigu magaaladu uu dib u soo noqday markii ay ka baxeen nimankii SNM ahaa ee dadka xasuuqi jiray ee dadka leen jiray markii ciidamadii SSC u soo jeesteen in laga saaray goobaha difaacyada ay joogaanna aysan ku sii nagaadi doonin magaalada banaankeeda ah runaantii intii ciidamadu ku mashquulsanaa difaaca dalka ee banaanka ah waxa inoo muuqatay in magaaladii gudaheedii rabshado badan ay ka dhaceen waan ognahay inay ka shaqeynayaan nimanka SNM iyo rag u shaqeeya magaalada jooga koow waxa kamid ah muqaadaraadkii la isticmaali jiray ee gobolka dib ugu soo noqday waxaan ka codsanayaa shacabka reer SSC iyo ciidamada in loo hoggaansamo sharciga iyo amaamiirta ciidanka ka shaqeynaya amniga iyo roondada habeenkii waxa la bilaabay roondo waad ogtihiin nimanka SNM gobolku markii ay joogeen 24 saac qof baa lagu dili jiray nimankii caashe barida soo qabtay qofkii qof dilay soo qaban waayay maanta deegaanka ma joogaan waxa joogay ka shaqeeya waa ciidankiina SSC ee naftiina idin huriyay naft maalkoodaba waxa la rabaa inay hoggaansanaataan ciidanka habeenkii shaqeynaya waxyaalaha amni darrada ah oo aad la soo wadaagtaan ciidanka goobaha ciidanku habeenkii roondada ka hayaan dadka ku isticmaalaya muqaadaraadka waan ognahay cidda soo dirsatay ku fiirsan meena shacabka iyo maatada inay dhibaatada ka dhacdo ciidamadu jiida jiray sidooda u jiraan ciidanka loogu talagalay amniga gudaha inay ka shaqeeyaan way joogaan maantii dadka xabada askariga maxaa hadda nooga taan xabada dadka ka faa'iideysanaya buuqa iyo sabaxanka ka jira deegaanada SSC ee isticmaalaya qoryaha ay wataan iska dhigaya jamaahiirta ee habeenkii magaalada xabada la dhacaya ee dadka xabada la dhacaya talaabo sharci laga qaadaya cidna loogu daba firisan meeyo qofkii dambe asoo muqaadaraad ku isticmaalaya magaalada gudaheeda ama qori sitay habeenkii xabad ridaya cidna loogu tirmeeyo gacan bir lagu qabanaya haddaan suuqii sheego dadku badankii waxaan u maleynayaa inay si garaneen waa Cornel Gowrac waa taliyaha adeer amniga gobolka haya gacanta ku haya wixii xoga ee habeenkii amni darra waxaad igala soo xiriireysaan lambarkayga anigu ma isticmaal habeen iyo maalin wixii amni darra ee gobolka lagu hayaad aragtaan qofna ha ugu tirina lambarkaygaan idin sheegayaa igala soo xiriira goob alla goobta taana ugu imaanaya lambarkaygu waa golis lambaradu SNM anigu ma isticmaalo waa 73 konton 69 73 konton 69 waa lambarka heeganka saacad walba diyaarka waa ciidamada shacabka SSC saacad alla saacadaad wax amni darra ah iyo muqaadaraad alla kulantaan lambarkaas aad nagala soo xiriireysaan aad baad u mahadsantihiin la shaqeeya mujaahidiinta naftooda idin huraya dadka qoryaha sita ee xabadaha iska ridaya u tura shacabkiina intaas ciidamadu gacanta idin ku dhigin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh